بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN. qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah Iiraan oo mar kale caawa weerar culus oo loo adeegsaday sawaariikhda Qatar, Cimaad, Fatah iyo Khaybar ku garaacday saldhigyada militariga Mareykanka ee bariga dhexe iyo weliba gudaha Israa'iil goobo xasaasiya oo ku yaal. militariga Israa'iil ayaa sheegaya in ilaa hadda gantaalada Iiraan ay soo riday kala bar oo bar ay wateen madaxyada qarxa ama kala firdha taasi oo sababtay khasaare baaxad weyn. sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegaynaa xogayaha dagaalka ee Mareykanka oo sheegay in maanta duqeyntii ugu cuslayd loo geystay Iiraan. meelaha la beegsaday waxaa ka mid ah magaalada Dahraan. Israa'iil oo ka walwalsan in Trump uu si degdeg ah ugu dhawaaqo dagaalka in la joojiyo. waxaan kula eegi doonaa dhammaan wararka arrimahan la xiriira iyo sidoo kale faraaqayntii. sidoo kale wixii warah ee soo kordhay inta hawada bartamaha Israa'iil, sidoo kale Haifa iyo waqooyiga magaalada Qudus ee la haysto ayaa sidoo kale la sheegayaa in la maqlayo seeriga digniinta ka bixiya gantaalada. telefishinka Iiraan wuxuu soo bandhigay sawirada weerarkaasi markii la qaadayay. Xisbullah ayaguna waxay sheegeen inay weerareen ciidamo Israa'iiliyiin ah oo iskugu soo ururay laba deegaan oo ku yaala xadka Israa'iil iyo Lubnaan. waa deegaan kaliya Wadi al-Asafir iyo sidoo kale magaalada la yiraahdo Khayam. dhanka Israa'iil war lagama hayo arrintan. waa tahay waxa isna hadlay goor dhaweeto aqalka Kremlin war laga soo saaray. waxa la sheegay goor dhaweeto in telefoonka ay ku wada hadleen madaxweyne Vladimir Putin iyo madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian. xalayna waxaan ogeyn in Ruushka ay sheegeen Putin inuu soo wacay in la soo wacay Putin oo Trump soo wacay isla markaasna uu kala hadlay sida dagaalkan lagu joojin lahaa. Ruushkina wuxuu soo bandhigay hindise. dabcan waxay u baahan tahay arrimahaas in laga wada hadlayo. waaya maxamed aanu imaanno xaaladahan aanu imaanno imika socda. Israa'iil waynu maqlaynaa sida Reuters ay leedahay waxay ka walwalsan yihiin ciidanku in Trump uu ku dhawaaqo degdeg dagaalka in lagu joojiyo. ma waxaa la filayaa sidii Mareykanku xootiga xabajirta ay loo gaareen in Israa'iil rasaas joojin aysan ogeyn la gaaro? wararka soo baxay dhan waxay tilmaamayaan Mareykanka in uu xiriir la sameynayo dhinacyo kale oo uu fariimo u diray wadanka Iiraan. hadda waxaan moodaa hanjabaadii inuu joojiyey. dhowr goor ayaa hadallada uu laga soo gudbinayo oo Iiraan loo gudbinayo iyo hadalladii uu warbaahinta u sheegayo ay kala jeedeen. kadibna waxa ay samaysay arrintaasi in warkiisa la maqli waayo. hadda waxaad moodaa markii uu la hadlay madaxweynaha wadanka Ruushka wixii ka dambeysay in uu hadalladiisa gaabiyey. waxaa muuqata Iiraan in ay shuruudo culus la imaan doonto oo ay ka mid tahay sida hadalka loo dhigay in Mareykanka uu ciidamadiisa dhan kala bixi doono gobolka bariga dhexe. tan kale oo Mareykanka hortaalla waxay tahay Mareykanka danihiisa kaliya ayuu ka hadlayaa. Israa'iil magaceeda ma soo qaadi karo. Israa'iil ayadaa dagaalka ku bilowda Iiraan kal hore iyo markan ayadaana ka jawaabaysa sida ay Iiraaniyiinta hadalka u dhigayaan. Mareykanku marka xaalad adag ayuu ku jiraa. tan kale Mareykanka sumcadiisii iyo in hanjabaadiisii labadaba waa shaqayn waayeen. weerarada uu qaadayo iyo wararka ka soo baxaya dhulka waa kala duwan yihiin. Iiraan waxay ku eedeynaysaa Mareykanka inuu goobo rayida duqeynayo sababtoo ah goobihii uu ku talagalay ee militariga agtooda waa mari laayahay. difaaca cirka ayaa aad u shaqaynaya. dhinaca kale duqeynta ay Iiraan geysanayso ee ka dhanka ah dhinaca Mareykanka warar kama soo baxayaan, waa la qarinayaa. Iiraan ayaa warka soo saaraysa. dhinaca Israa'iil shacabka waxaa lagu wargeliyey in kaamarooyinka aanan wax lagu duubi karin. xataa baraha bulshada waxaa dhex wareegaya booliiska oo magaalada dhexdeeda maraya oo burburinaya kaamarooyin meelaha qaar lagu dhejiyey. waxaana muuqata dagaalkan sida ay khabiirada dhan hadalka u dhigayaan Mareykanka iyo Israa'iil waxay filayeen iyo waxa meesha soo baxay inay kala duwan yihiin. difaaca cirka marka ay noqoto Iiraan wax aan la filayn iyo mucjiso ayay la timid. waxyeelada ay Iiraan geysatay iyo waxyeelada ay Mareykanka geysteen marka la isbarbar dhigo waxaa aad u badan baa leeyahay. Mareykanka inay indhalaan ku dhacday wadamada gacanka agabkii uu 30 sano dhisayay in saacado kooban iyo maalmo kooban lagu burburiyey. arrintan la xiriirta xabad joojintana
iiraan weli diyaar uma aha cidda baryootamaysa oo cid walba gadaal ka istaagaysa oo aanan magac iyo sumcad lahayn oo xataa ilihii uu wararka u gudbinaya waxaa loo sheegay haddii aflagaado afkiisa soo marto fariin nooma keeni kartaan waa ina iska diidaan fariin hadduu kuusoo dhiibo maraykanka uu hanjabaad noo jeedinayo hanoo keenina maraykanka marka xaalku waa ku culus yahay waxaana muuqata maraykanka gudihiisa laftirkeeda in culays badan ka bilaabanayo oo shidaalkii uu qaaliyoobay madaxweynaha maraykanka inuu isku dayayo warar isdhaafsan oo badan inuu sii daayo si uu saameyn ugu yeesho suuqa saamiyada si saliidda sicirkeeda uu hoos ugu dhaco waa garta marka hadalkan dagaalkan soo gabagabeynayna waa guulaysanay iyo wadahadalladan ruushka uu la yeeshay ma waxaa loogu talagalay in suuqa lagu dejiyo lagu xasiliyo mise qabiilada qaar saasay hadalka u dhigayaan tan kale iiraan waxay leedahay diyaar uma aha in ay wada hadal la gasho shaydaanka weyn waa siday hadalka u dhigayaan maraykanka aaminaad kama dhexayso dagaalkana isagaa bilaabay dagaalka cidda dhammaynaysana isaga maaha xaalkana sida muuqata iiraan weli waxay u caaboon tahay in dagaalkan uu sii socdo ilaa iyo laga gaarayo xilliga doorashada bisha November ayaa ilaha qaar leeyihiin maraykankana uma adkaysan karo dagaal sii dheeraada markii ay timid xagga ciidamada badda maraykanka waxaad moodaa in maraakiibtiisa dagaalka ay deegaankii ka carareen sida hadalka loo dhigayo isla markaasna isgaarsiintii raadaaradii iyo agabkii kala dhan ay gaabsi yihiin xogayaha dagaalka ee maraykanka ayaa ku hanjabaya diyaaradihii ugu badnaa inay maanta howlgeliyeen laakiin iiraan ilaa iyo haddeertaan wax wara ay arrintaas ka soo saarta ma jirto waa gartay dhinaca kale hadaynu ka eegna maxamed waxaa moodaa gudaha maraykanka dooda adag inay ka taagan yihiin la xiriirta hadallada Trump uu jeedinayo waxaad inooga warantaa qabiilkan reer Iiraan oo ka hadlaya hadallada Trump ka soo yeeraya muxuu ku tilmaamay maamulka Trump ayaa isku dayaya in uu sababo badan jeediyo si dadkiisa ay dagaalka u taageeraan xogayaha dagaalka waddanka maraykanka Pete Hegseth ayaa sheegay Iiraan hore ayay miinooyinka la isku qarxiyo ugu isticmaashay askartii maraykanka xilliga dagaalka Ciraaq uu socday haddana uma muuqato in lala sababay shacabka Iiraan shacabka maraykanka ay la sababayn karaan waddanka Iiraan walwal weyn ayaa ka jira waddanka maraykanka gudihiisa dagaalkan inuu muddo dheer qaato waxaan leeyahay toddobadii dal ee maraykanku uu duqeeyey wax saameyn ah oo khatar oo shacabka maraykanka kusoo wajahnaa ma jirin isla mar ahaantaasna waxaa la leeyahay waxaa aad u sii kordhaya sicirka gaaska iyo saliidda waxaana muuqata in ay bilaabatay in la maqlayo shacabka oo ka cabanaya in bacrimiyaashii beeraha loogu talagalay iyadoo xilligii beerashada uu dhow yahay ay qaali yihiin intooda badan ee gobolka bariga dhexe ka imaan jireen xilligii beerashada ayaa hadda bilaabanaya shacabka maraykanka ayaa fariin diraya in aynan taageeraynin dagaal military oo dheeraada wasaaradda dagaalka ee waddanka maraykanka waxay isku dayaysaa inay fariin dirto oo ah in xaaladdan aynan noqon doonin midda Ciraaq iyo Afghanistan oo kale iyadoo Trump maamulkiisa cadaadis badan uu hadda kaga imaanayo shacabka maraykanka oo laga dalbayo in uu soo afjaro dhinaca kalena maraykanka dagaalkan markii uu abaabulayay oo galayay waxa weeye waxyaabo badan ayuuna ku xisaabtamin isma lahayn Iiraan way isdifaacaysaa oo xerihii militariga ee gobolka bariga dhexe ku yaala ayay eber ka dhigaysaa waxaasoo dhan saameyntooda ayay yeelatay tan kale oo ayadana soo taraysa waxay tahay tirada dhimashada ilaa ay haddeertaan ama Israa'iil ha noqoto ama Maraykanka ha noqoto waa la qarinayaa laakiin dhibkii qarsatay asna waa ku qarsadaa waa gartay waa yahay bal aynu eegno markaasi wararka ugu dambeeya hadda soo dhacaya waxaa la sheegayaa waxaa goordhow ka hadlay ergeyga Maraykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff wuxuu sheegay toddobaadka dambe inuu booqan doono Israa'iil wuxuu kaloo beeniyay wararka sheegaya
in maraykanku ay ku tuhunsan yihiin ruushka inuu macluumaad sirdoon siiyey iiraan oo ay ku beegsanayso xarumaha iiraan isagoo markaasi sheegaya xarumaha maraykanka uu leeyahay ayaan ula jeedaa inay beegsanayso iiraan beegsanayso waa yahay qabiil u dhashay waddanka iiraan oo Abbas Aslani la yiraahdo oo cilmi baara ka ah xarunta bariga dhexe ee daraasaadka istiraatiijiyada fadhigeeduna yahay magaalada Tehran ayaa waxa uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka bayaanada uu soo saaray way isduqeynayaan wayna dhib badan tahay in la isku halleeyo waxa erayada ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka waxa uu sheegay madaxweynaha Mareykanka hadaladiisa in ay la xiriirto inuu isku dayayo inuu dagaalkaasi dhow u soo afjaro saatee waxaa loo turjuman karaa in uu rabo inuu saameyn ku yeesho ascaarta suuqa saliidda iyo sidii uu xakameyn lahaa sicirka saliidda ee caalamka ee sii kordhaya ee saameynta ku yeelanaya meel walba wuxuuna hoosta ka xariiqay hadallada iska hor imaanaya madaxweynaha Mareykanka ayaa iyo wax dhulka ka socda inayna islahayn Aslani ayaa waxa uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka hadallada uu jeedinayo iyo waxa aan ka arkayno magaalada Tehran meelaha ka baxsan oo ay ka mid tahay Karaaj in ay yihiin duqeyn uu duqeynayo meelo cidla ah waxaana muuqata aragtida ah in uu rabo inuu Iiraan uu isku dayo inuu dagaal weyn ku qaado isagii Israa'iil ay arrintaasi tahay mid uu ka badbadinayo waxaana muuqata Trump hadalladan iyo guusha uu samaysanayo inay tahay wax ka fog xaaladda dhulka ka jirta waxaana muuqata dhinaca Iiraan marka la fiiriyo inay si fiican isu difaacayso meydaankana khabiiro badan waxay sheegayaan Iiraan inay si fiican dagaalka u maareynayso meesha Mareykanka iyo Israa'iil isku dhex yaacsan yihiin waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay waa inuu arki doonaa